بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliyeed meel walba joogto salaamaya waxa waaye horta mar walba waxa isdhahaa barnaamijyadan hadalka waxa waaye adigu barnaamijka talantigaaga waxa waaye fan iyo hees oo inta ku eko wax soo hadlin laakiin waxyaabo badan oo waxa jiro aad maxaan kugu qasbay inaad soo hadashid oo kugu kalifaayo waxa waaye wixii ay dadku u jeedaan oo muuqdo ay arkaan oo ayagu maxaa la yiraahdaa fasiranayaan waa gooni laakiin waxa hoose oo anaga shakhsi aan dhalinyarana heesto cid la socota barahan ama og ama ka fanaaniin xaqiiqda markii laga hadlayo fanaaniinta Soomaaliyeed waliba kuwa dalka ku sugan oo dalka joogo waxa waa intooda badan gumeysiga macnaha qaab darni ku jiraan ha noqdaan qaar fiidiyoyo laga haayo kuwa ma aragtay qolobta ka jirno oo maxaa la telefoon ugu gumeysto kuwa dad loo soo adeegsado ma aragtay oo dad ma aragtay Soomaaliya dadka joogana waxa waa xaqiiqda markii laga hadlo $20 qofka dad soo dhiibtay ku soo adeegsato qofkaas aadadid dad ay ka soo roodaan jiro oo ku soo aadayo waxa waa muhiimada aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay horta barnaamijkeena oo socday oo bilow ilaa dhamaad oo waxa waaye YouTube ku saabsanaa YouTube-kii gacan inuu galo YouTube-kii inuu soo noqdo inaan raali gelin soo bixiyo inaan hadana wax ka soo jafo waxa soo dhan xaqiiq dhab oo guud ahaan hadana naga maayo waxa dhabto hadda taagan markii laga soo tago qadartii dhacday iyo maxaa la yiraahdaa tacsidii oo nagashay iyo xabsigii markii laga soo tago waxa waaye horta nina qalad nagu soo maagay anaga oo qaladka markuu nagu soo maagay maxaa la yiraahdaa anoo iska joogo Djibouti aqoonna aan u lahayn waxbana aysan naga dhaxeelin waxaan arkay nin iga soo hadlayo aniga maxaa la yiraahdaa oo bilaa macna dara been u jeedo oo cad ka hadlayo ninka waa marmar waa arki jiray maxaa la yiraahdaa laakiin kuma xirneen aniga nin oo social media ku jiro oo yahay qabyaalada iyo siyaasadda ka hadlay waxyaabo noocaas inuu yahay arki jiray marka arrimo iga waaweynayeen waxa soo maleey jiray kulay dawlad iyo wax isfahansan yihiin iyo waxyaabo dad isqabteen inuu ka hadli jiray waxa soo maleey jiray laakiin kama dambeys waxa ogaadeen in iska madadac ah oo iska hadlo oo siyaasad xataa aan waxba ka aqoonin dawlad aan waxba ka aqoonin qabiil aan waxba ka aqoonin because ilaa hadda qabiilku uu yahay iyo qoladu uu yahay ama aqoon u maleeyay mana maleynaya dadku uu sheeganayo inuu ka dhashay because qofka waxa waaye dadku uu sheeganayo dad wax isto oo dad macnaha maxaa la yiraahdaa qabiil Soomaalida kamid ah oo la yaqaano oo magac ku leh oo dad ka dhashay oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro leh oo fanaaniin leh oo wax walba leh waaye oo waxa way qofkan haduu qaldan yahay qabsan karo laakiin aniga hadda waxa aaminsanahay shakhsigaas asiga ah waa magaciisa qaadin Soomaaliya oo dhan ay wada ogtahay YouTube-ka hadda kor gacanta u gali jiray waxa waa in uusan qolaba lahayn boo qof qol cid oo ka dhashay ama loogu dacwado uusan lahayn xaqiiqda markii aan ka hadlaayo horta aniga cid aan ka baqaayo oo Ilaahay ma jirto waxa waa daraadno waxa igu kalifay in aan aniga inta soo fariisto oo aan live inta u soo galay YouTube aan soo dhaw maxaa la yiraahdaa aapa social media tahay maxaa la waa ka baqaaya kana waa ka saarana waxa waa aniga waxa soo wacay nin dhalinyaro ah oo YouTube-kiga hay oo walaalkay adeer darajo oo Kenya degan oo meeshaas joogo waxa waaye oo dad is-aamina aan ahayn YouTube-kiga asoo 8 ku maraya u dhiibay adeer darajo oo aan waxba ahayn waxna aan ka jirin waxa way gacantu ku soo qabtay copyright igu sameeyay waxa waa ku tataybi waxyaabo badan oo igu sameeyay YouTube-kiga waxa way heesaygu ii xiri jiray waxa way account igu xiray YouTube-kiga lacag inaan ka sameeyay heer oo i gaarsiiyay wax walbo si walaalnimo iyo kalsooni ay nooga dhaxayso oo isla marnay waxa waaye qof aaminay aan yarteed aan ku aaminay waxa wixii uu ii soo diri jiray wax walba uu ii sameeyay jiray okay ninkaas aniga saaxiibkayga maanta hadii uu gacan u galo ama gacan bini aadan ama qof uu gacanta ku dhigo waa ku qasbanahay in YouTube muhiim ma ahan naftiisa ay muhiim ah Soomaali Maxamed ha ogaado ama ka dhaadhacdo aniga ku adkaysi waan ku adkaysan karay ninkaas markaan lahaa 48 saac wada kaaga saaray markuu ilaahan aan lahaa waxaan xaniyahaaga fuul waxa iga qaadi kartid malahan anoo Muqdisho dhax joogo oo aan cidna ka baqaynin oo aan isdheyn qabiil aan aaminsaneen oo kan yahay idaarood iyo fikir ka dhaay qabiil iyo inta ku jirta iyo waxaas ugu jirin xaniyahayga nimadeeda anoo kalsooni kale aan deeyay cidna aan deeyay ama cidaas ka dhicinaysa ugu jirin ama qofna u soo marin rabina nimadeeda xaniyahayga ku hadlay inuu soo waxba iga qaadi karna ogaa because fanaaniinta Muqdisho boqolkiiba 99 gacanta ugu jiraan nooca gacanta ugu jirna aniga ma ahaan ma fahamtay oo ugu soo qaldamay Djibouti ka soo bilaabo iga soo daba dhigtay waan ka aamusay shibanka ere waxyaabo badan oo ka hadlay Djibouti jooga gaaja ku dishay kan oo ka hadlay waxyaabahaas oo ka hadlay waa ka aamusay ilaa Muqdisho imaaday waxa waaye wuxuu ilaahay farmaajo iyo maxaa uga soo hadashay
arrintii haddana shabaa ka eri wuxuu yiri show kama qayb geli kartid macnaa salka ii saare wax igu kalifay marka anoo oo aan ninka aan u naageenin aan ka baqin oo aan video u igaheenin oo waxbana igu sameeyeen wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeenada kamid ah anuu garow jooga wax soo wacay deeq darajo soo wacay wuxuu igu yiri ninaaga shit wuxuu igu yiri ninaa bas koolay waa ilaa waxa soo wacday gabar maskiin ah waxay u tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaada naloo haystaa bas aniga awoodeedu waxay noqotay ninkii inaan waco aan dhaqorniyo aniga adiga naga dhaxaysaa dagaalkan waxaan maxaa ku haysataa dhalinyaradaas oo waxa waay wuxuu u adeegsaday nin laga baqo oo rasiid nuur loo markii aan ka daba tagay aan dhahay war ka baqin waxba idinku ma sameey karo waxa la itaha Ahmed Rashid aan dhahay waxa la itusay video ninkaas oo dad dilaayo oo dhalinyar Soomaaliyeed dilaayo laamiga dhaxdiisa ku dilaayo videogaas markii arkay ninka saaxiibkayga waa u baqaanay وأبغى بس نيكي مركا ويري لايف سوق الوي بري فاد وابري نيكي ومركا بري وحاواي وحل إيش نيكي صاحبك إن لسيداي يقدر يجبر كل سيدا وحقير صاحب كصوتك ما أساس وحاواي إمو جميل كي نيكي عنتي سوق له أنت ما أكو إرق وحاول تقدر جو كصوتك الله تقدر يجي فمن كيسي ماشي يقوليسي يحسي ينولشيسه وكسو عرّو وأنا وحبس كجر وقرو إلى إماده وحاول سومالي وإحنا فنزلين تقدر يجاكو خياني وحيابا نوعاسي كاد لاي مركا حتى وحيتاج أنت وكلف إنها صاعد لو حاول نكي محل إيراني هدي تركي بس ويركي وحي يقولون قعنت أبو يستا أنت كبقى ملها قعنت ذين يوجران وحاول ما أنت كرتوني خبرت عني ولا الصومالي وأمنت عني يوتيوب لسوفريستي خوفنا من بريجرين حني يوجري الصومالي عسكو برنوري ويوجرها وحاول ضعيف واي نرجع مع ماله هوسو كسواد لا ماله حتى يرتاح يوكل فوحيات هاي إن codkii dad waxaa jiro oo dad waaweyn oo arrinkiina ogaadaan rabaan dad asxaabta kamid ah oo codad aan markii aan ka qabanayno iyo ana la wadaag ana diray waxa dad u diray waxa inay ogaadaan ada codadkii la soo dhigay YouTube marka ma seeshiin ani ninkaas aniga YouTube-kayga iguma soo celinaysiis ahaysiinay YouTube-kayga xaniyii marka hore la iga qaaday la igu soo celiyay habeenada kamid ah anoo deeq isla joogna deeq telefoon ku hadlaay arkay oo ninkaas Ahmed Rashid Allah ku hadlay oo Ahmed Rashid ka telefoonka ka qaadnay deeqo waxaan ku iray saaxib adaanikaas ninka la yiraahdo Ahmed Rashid u galiyay gacanta YouTube-kayga waxa waay hadeertaan adaanikaas saas waxa la yiraahdo iiga heelay waxaan iga ma qaadi lahayn YouTube cusub aan aniga hadda sameystay YouTube kaasna waxa waay uma baahni laakiin xaqiiqada jirto waa ka soo hadlaya baa ku iray asoo siraftiisa dhooraayo oo ka baqaayo Soomaali Maxamed siraftiisa uga baqaayo Ahmed Rashid oo YouTube-kayga ii soo celi intuu wacay anoo aan la baryo tamin aan wicin oo soo gala qadka ninka la yiraahdo heblaay hebelka cali soo markuu soo galay wuxuu yiri iyo kuugu wareejiya sidii YouTube-kayga ugu wareejistay maxaa la yiraahdaa oo aan deeq darajo baasweerkii wixii hadana ii bedelay bas marka si walaalnimo oo iiga codsado yiri maxaa la yiraahdaa ii soo gal YouTube waa ku bariya ii sheeg bas ina YouTube-ka kuugu wareejilay aan bas aniga sheekada meesha ku ekaatay wax walba aan islaha sidii aan dhacday bas hadeertaan ala kulli xal muhiimad soo fariisa waxay tahay waan inuu tusaya baqashada la bargiisana waa taqaanaan wuxuu soo diray waxa waaye xayaat ka jiro waxya wuxuu leeyahay waxyaabo oo maxaa la yiraahdaa waa ku qaawinaya video waa ka duubaya kan uu duubaya meelaha hoose ee meesha ninka ragga laga marin oo naga soo maraya ma fahanti Soomaali Maxamed waxa uu sheegaya aniga horta cid aan ka baqaay ma laha YouTube-ka maanta haduu hawada ka baxo فكيو يوتيوب waxa uga baanay malahan waxa waan noolahay dad baa ka dhashay Soomaali Maxamed aan ka dhashay 20 jir ahay mar walba jaanis ah haysta aniga laakiin waxa inii sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed waliba fanka dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeesi ku jiraan intooda badan gumeesi idinku waxay idin soo gudbiyaan farxada idin la wadaagaan heesa idin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqada marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeesi intooda badan ku jiraan waa loo caag jugleeyaa qaarkood video waa laga haayaa qaarkood wax walba lagu sameeyaa qaarkood dad loo adeegsadaa raga loo adeegsadaa
ninkiina ilaa ay hadeertaan waxaa dadku daba taagan yihiin ee sheegaan waxay tahay muxuu idin daba taagan yahay sharma muxuu uga soo hadlay dadku waxay isleeyihiin hadeer sharci sheekada weeb aamustee muxuu sharma iyo haddana uga soo hadlay waxaa waaye wuxuu uga soo hadlay dadku kula feeso naagu dhalay weli cagto noo saaraya waxaa waaye haddana annaga nama soo aadi karo oo nimadiisa annaga naguma soo aadayo nooguma caga jugleenayo meelo hoose iyo gabdhihii iyo xaafadihii iyo familkii nagala maraaya dagaalo daciifeed cidiya hoosteedu nagala diraaya waxa inii sheegaa aniga hadeertaan deeq darajo walaalkayga waa isla joognaa waxaa waaye ilaa iyo meel oo maxaa waaye ilaa iyo familkiis u baqaan heerkaas soo maraaya oo la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa inta loo idin diraaya oo aniga xataa la idhaa waa inta lagu diraya waxaa waaye annagoo dalkeena joogno oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dalkeena joogno oo annagoo dalkeena joogno dhibaatada jirto dalkeena la ogyahay horumar ku sameeyayno dad haddana xagga joogo oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo free ku nool waxay nagula dhaqmayaan waxyaabo ayna u dul qaadan karin fanaaniinta Soomaaliyeed qaarkood inta badan hore ugu soo dul qaateen waxa idin sheegay aniga qof bini aadan aan ka baqaayo ma jiro ciilka iyo ilintan waxa ay keenayo waxay tahay aniga haddii aan adkaysto oo ninnimadeeda aan ku adkaysto oo wuxuu yahay aatus waxa waa meel aan ka damqanayo rag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar iyo xaggooda naga soo maraya iyo meel aanan maxaa la yiraahdaa dad aan maxaa u eed aniga tusano koraysa oo dartiina wax walba noo gaaraan leeyahay Soomaali Maxamed aniga waxaan rabaa in ay ogaato dib زائد فنانين Soomaaliyeed aniga u hadlay afka fanaaniintu ku hadlay waliba kuwa dalka ku sugan dhibaato زائد naga heesato xagaan iyo maxaa la yiraahdaa dadkan ku sugan dhankaas iyo maxaa la yiraahdaa qurbaha hadalka aan ku dheeraanaynin Soomaali Maxamed waxa waaye waa ka raali gelinaya xanaaqi iyo kuleelka iyo hadalka aan ku hadlay waxa waaye arinka ina ogaataan arinkaas meesha uu maraayo ninkaan uusan naga daba harin agta uu noo saaray haddana waxa ka sii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlay xaniisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walbo aan ninkaas ina ka hortaga aad dabco waxa ay soo hor istaagayo أحمد رشيد waxa isoo hor istaagay Axmed Rashid ninka noo yiilay ninka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay uga baqaysa ma aqaane dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kaadinayso ninkaas oo naga soo maray ninkaas markuu awoodi waayo deeq darajo cilmi kuma dhamo wallahi oo bilaahi oo talaa xabad cilmi ah oo intaas dhigin isku dhameen awood waxa u yeelan in YouTube-kiisa ahwada ka saarno oo naga soo weerarayo oo awood u yeesay deeq darajo وكذب التجي وحبوه نقاد بأسيج المها حقه قوته أسيج واحد بالسبعية حنية ما أقول مساس وجرا طلع وقوي لا أفار قبيل كمرك قف وقوي ليس وقبيل كمرك لوجو خلدمه قف قبيل لوجو هنا لكننا أنا قبيل لهن قبيل وحقوين لكن ما أنا لهن صومال ما أنا كجرين أو واحد أنا ترين أفكار ومفارقة هايو أو إسكندرة قبيل وقوي الناس وحاوي وحلو دن قضاء قفك قبيل وحكي قانون قبيل وصبح أقولين نرجع وصبح أقولين هير وصبح أقولين وحاوي إن اللي يرد الصومالية وصبح أقولين نكاس نوجبي أو اللي يراد أحمد رشيد عنده نوجلي وحاوي هذا مجبن أو معناها إن وحلو إن العشرة ما يوتيوب كيجي إن معناها عنده كويستو أما ولي الحكم يوتيوب كيجي أنا عنده كويستو حتى تقدر يجادك عندكم معايا أكون تيجي أنا عنده كويستو يوتيوب كيجي أنا عنده كويستو حب أنا عنده كويستو لكن ولي على جوجلين يضطر يقدر يجي إلا حتى وحاول وكسرت تكنولوجيسي وحي أسعد هرمركيسي ماشي جوج وكسرت وحاول حياة كاجل أيضا الصدق كله تكملها وكسرت تكتي وحاول حمر يكسر انتهي وقصة ضبطة جو وحاول ضبطه وهذا وخبطه wuxuu dadku ugu booteenayeen waxay tahay oo dadku uga baqayaan dhalinyaro Soomaaliyeed fanaaniin Soomaaliyeed dad fara badan oo hada magacyadooda inta ka soo qaadeen oo hore wax ugu geystay oo fiidiyoyo oo ku saystay inta badan ninkaas dumarku wax ku sameeyaa rag wax kuma sameeyo ragna wax kama yaqaano waxaan aaminsanahay inay waliba rag is arkin haddii rag is arki lahaayeen ama maanta uu Soomaaliya joogi lahaa waxa waay ninnimadiisa la tusi lahaa waxa uu asiga yahay buu arki lahaa Soomaali Maxamed waxa ogaataan
ninkaas inuu dhib ku haayo dhalinyarada Soomaaliyeed inuu dhib ku haayo ma fahanteen waxa waaye anigu inta hadalkaas wax u soo gudbinayay oo muhiimadu ay tahay waxa waaye oo raaligelinta aan dhibiciyay ama baryada aan baryahay ma ahan wax aniga asiga ka baqay ama cilmi uu iga badiyay ee deeq daraja baskoolad madax looga hayo xaniyo gurigiisa loogu tagaa ku iray ma fahanteen si familkiisa loo tagay waa la soo wacay marka aniga awood kale oo furneed ma lahan wada kale oo sameeya in ninkaas tuwaco aan baryo oo video soo duubi dhaho aan video u soo duubo wada ahayn ma lahayn markii tii aan dhacdan isla subaxii qadara qabsatay oo xabsiga gale oo tacsiya ay gashay ninkii ilaa hadda uu dib taagay alaa kula hadalka waxa ku soo xiraaya muhiimadu ay tahay waxay tahay ninkaas asiga ah inuu wali cagto oo noo saaran yahay oo na dabahaayo waxa waaye anigana ma aan shaqsi u dabahaayo waxa waaye ninka daraja oo dhalinyarada walaalkayga ah iyo waxa waaye bahalkii maxaa la yiraahdaa teeda anoo dhan family waa ka dhalanay qofka familkiisa anoo maxaa dadku isqaana laga yaabo dadku maxaa la yiraahdaa familiadood ma meesan waxba qaban karin oo ninkaas yaa horta family wax qaban kara family qofka markuu familkiisa la ogaayay meesha ka soo jeedo ninkan familkiisa lama ogo wuxuu yahay kama soo jeego qabiil uu sheegtaa qabiilku uu sheegto wuu sheegto aniga hadda qolada raba sheegan karaa laakiin dadka aan ka dhashay waan dhex joogaa waa kuwaana ayaa ka dhashay waa sheegay waan ku faana waa ka dhashay Soomaali Maxamed guud ahaan oo ka dhashay laakiin qaasatan ma jeerteen ka soo jeeda qabiilkan in la isku barto waa muhiim ma ahan qabyaalada qulubta ma ahan ma fahanteen laakiin muhiimadu waxay tahay ninka meel loo raacdo ma lahan oday cista ma lahan nabadoo looga dacwado ma lahan dad loo mara ma lahan wuxuu yahay ma lahan saasay tahay dad ugu sii heelinaya qabyaalada iyo Soomaalinimada iyo qabiilkaba waxba ka aqoonin marka waxa uu sheegayaa Soomaali Maxamed arrinka inay saa u ogaato videoga wax igu soo kalifanay arrinkaas ahayd waan in salaamiya kuma sii dheeraan karo waxa waaye hadii hadalka inta ka badan ku sii dheeraadana hadal iga tagaayo Soomaali Maxamed salaamu calaykum waan in salaamaya goodbye